xafladaha arooska qaabka loo dhigo ma qaab wanaagsanaa mise waa qaab wax ka sii yihiin oo isdhex yaac iyo isdhex socod ah. maanta waxaan kusoo qaadanaya barnaamijka. kusoo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa cafiifa iyo mar kale janalkeena cafiifa janal. kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii, waa idin salaamay meel walbo aad joogtaan. jimco mubaarak, jimco kariim ayaa idin leeyahay. ilaahay maalinta jimcada fadligeeda iyo kheyrkeeda hana waafajiyo dhammaanteen meel walbo aan joogno. ilaahayna inteena xanuunsan ha caafiyo, intii dhimateen ilaahay ha u naxariisto, intii dhibaatooyinka la haystaan ilaahay ka dulqaado, guud ahaan ummadda islaamka ilaahay ha u gargaaro, gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed. ilaahay dhibka iyo dhibaatooyinka ay ayagu isku hayaan ilaahay ha ka dulqaado, ku wanaaga iyo kheyrka isla gartan ilaahay ha naga dhigo. kusoo dhawaada. maanta waa barnaamijkeeni talo iyo tusaalo oo aan kusoo qaadanayo qaabka aan xafladaha u dhigano, guud ahaan xafladahoo dhanba, siiba arooska. marka xaflada arooska la dhiganayo, gaar ahaan qurbo joogta oo maanta quseeya qaybtaan. qurbo joogta qaabka ay u dhigtaan xafladaha arooska, qaabkaasoo haddii horta si loo fiiriyo aan saxnayn oo meelo badan ka qaldan, oo iyadoo saas tahayna laga dhigto maxay ahayd maalmaha fasaxa ah, iyadoo dadku sida badan ay maalmaha kala shaqeeyaan mashquulsan yihiin. maalmahaas fasaxa ahna waqti dheer oo maxay ahayd bilo iyo baryaba intay noqoto lasoo agaasimo oo lasoo arooskaas laga soo wada hadlo, oo intii qaabka loo dhigi lahaa iyo meesha laga dhigi lahaa iyo intaasba ay waqti ku qaadato. oo hadday noqon lahayd meel hool ah oo la kiraysto, iyadoo laftirkeeda laga yaabo in bilooyinba la sugo meeshii laga dhigan lahaa. meeshaas arooskii la isugu yimaado oo xafladii intaa waqtiga iyo juhdiga la gelinayana ay kusoo dhammaato meel aan wanaagsanayn, oo meesha tahay meel buuq badan, oo tahay meel aan dadkeeda ay fara ka badan yihiin, oo nidaam dhan aan lahayn, oo maxay ahayd la isdhex socdo, oo laga yaabo mararka qaar in laga badbadiyo oo ummado kale oo Soomaali ahayn lasoo casuunto iyadoo nidaamna la haysanin, oo qaab dhanba aan war loo haynin. Soomaali horta iyadoo waa istaqaanaa oo sidaas ay isu eedaan mar walbo. aroos la amaanay kuma arkin qurbo sida badan, iyadoo sidaas tahay haddana dad kale oo ajnabi la casuumaa oo arooska laga soo qayb geliyaa. meeshaas oo nidaam aan lahayn, oo aan kala dambeyn lahayn, oo buuq u dheer yahay, oo hadduu meeshaas meel muusiga jira ay tahay muusiga cirkaa la geeyo, oo maxay ahayd haddii dadka ay tahay Soomaali hadana waa la yaqaan haddii meel la isugu yimaado buuqu isagana cirkaasuu marayaa. leesma xushmeynaayo, waa qof walba dhinaceeda ka qaylinaysaa, qadarin ma lahan meeshan. meel arooska loo yimid oo si nidaam ah loo fadhiyo ma lahan. qof walba kursiguu jooga ama meeshuu joogo wuu ka qaylinaa markuu rabo inuu qof kale la hadlo. qof uu yaqaano albaabka kasoo gala meeshiisuu ka qaylinaa oo salaan kasoo gudbinaya. dad kale dhex fadhiyo, ayaga kaligood xitaa ma ahan. marka wax badanaa ka qaldan maxay ahayd sida aan u arkay. idinkan dhammaantiin kulli waad aragteen inta qurbo joog ah. marka wax saxana ma ahan, wax nidaam leh ma lahan. hadday noqon lahayd cuntadii, hadday noqon lahayd cabitaano iyo wax walba meesha loogu talagalay, macmacaankii maxay xilli uma nadaansano, saacad ayada haba sheegin warkeeda. dadkii la casuumay ayagana sidoo kale xisaab ma lahan. kuwa iska soo raaco aan loo yeerin xisaab ma lahan. marka wixii oo dhan nidaam ma lahan. iyadoo saas mararka qaarkood dadka waa la arkaa iyadoo cuntadii iska taalo aan la siinin, waa nidaam xumo. oon xitaa biyo la siin, oo qof walba markay meesha ka tagto ay eed iyo kala tagto inay tiraahdo meeshii arooska aan taga caawo cunto iyo wax iska daaya anaaba biyaanba meesha kasoo waayo oo nafteyda aan biyo u waaye. marka intaasoo dhanbo lagama taxadiro, marka hore nidaam looma sameysto. marka waa intaas saasay u qaldan tahay xafladaha in qurbaha loo dhigto sida badan. cuntadii xilli dambe in la cuno oo xilli aan ku wanaagsanayn ah oo la cunayo tan ugu soo horeyso.
xilliyada ugu dambe oo macaanka la cunaayana waxaaba aduu 8 saac 9 saac ama 10 saac ayba noqon kartaa waa sii dhaaftaa mararka qaar 11 saac waagi hore waxay ahaan jirtay in lasoo dhameeyo xafladaas meesha lagu kala tago 12 saac 11 saac ugu meelahaas waayadan dambe waxay noqotay in oo caadi markuu waagu baryo 1 saac ugu soo horeyn lagu kala tago meeshii intaasoo waqtiyana ani sidee ila tahay uma baahno laakiin waa nidaam xumo dadka haysato xilliyadaas saacadahaas dambe waxyaalaha la cunaayo iyo cuntooyinka la cunaayo wax loo baahan yahay ma aha waxa waqtiga la geliyay xitaa waxa laga yaabaa inaan la cunin dadka rabayna aan la siinin hadday doonaan aysan dadkii ayba cuni karin wax meesha lasoo dhigo iyagoo aan cuni karin ama dhameyba karin haddana nidaam lagu siiyaa la weynayaa dadkii oo dhanba waa dad stress ku jiro waa la wada buuqsan yahay waa la isku dhinac ordayaa wax nidaam ah ma lahan marka waxyaalahan aan u fiirsado waayo oo aan la yaabay oo isla wax badanaad qaldan cid saxaysa iyo cid dareemaysana ma lahan maba la dareensanabo hadda ka hor xaflad aniga aan tegay inkastoo xaflada aan u badnaynin waxaan arkay xaflada saas oo kale dadka wadanka u dhashay lagu casuumay oo maxay ahayd ay joogaan qof markaa kaa fog sida adiga aad martidaada aad u casuuma lahayd aa la rabaa qofka markaa Soomaalida ka dheer meeshaas in la ogaado oo adiga aad u yeeratay oo aad si gooni ah u maamusto marka qof walba markuu meeshiisa ka soo booday oo cidi maamusaynin oo cidi meeshiisa wax ugu geynaynin ayaga xafladaha saas dadkan wax u yaqaanaan qof walba in fadhigeeda wax loogu geeyo oo adaa u yeerato qofkaan u casuuntay haddii wax la soo qaadana ay yihiin waa meel nidaam ah oo ay meesha ay arkaan cuntada saas saaran tahay oo la leeyahay cuntada meeshaan laga soo qaato taasna way yaqaaniin badanaa in qofku wuxuu ka soo qaato laakiin anaga haddii la dhaho la soo qaatana dadkii aan nidaam lahayn oo waxba soo qaadanaynin oo isdhex yaacayo meesha la iskarbinayo oo la isku cariirinayo haddii loo geeyo la dhahana geeyintii ma nadaamsana ayadana oo loomaba geeyin karo wixii oo dhan waa wax aan isqaban karinba tan ugu wanaagsan waxa waa dadka Soomaalida anaga waa dad aan lahayn ayagana sal oon fadhinaynin u geesmadina aan ku sugaynin haddii soo qaata la dhahana aan ismaamuli karin oo ayagii dadkii martidii yaaba ayada laftirkeeda aan dhibkeeda yareyn dadkii wax casuumayna ayagana umaba soo jeedaan inay dadkan ogaadaanba meesha ku soo xareysteen dib looma sii fiirinayo dadkii saa wadanka u dhashay oo markaa la casuumay hal naagan ka arkay naagti markay aragtay dadkan qof walba ordayso qofka biyo u baahdo uu asaga inta ordo uu xoogiisa ku soo qaadanayo qofkii cunto u baahdo uu asaga xoogiisa ku doonanayo oo meesha garabsado uu wax soo qaadanayo oo jikada la isku garbinayo ayadana nafteeda u yaabtay way istaagtay dhinacii ka gashay ayadoo saxan inta wax ku soo qaadatay kursigeedana laga fariistay istaagni ku cunaysan arka markaa cuntadii markaan waxyaalo markaan arkay aad aan uga xumaadaa jiro oo aan quruxsanayn oo annaga ahaan noo quruxsanaynin bulshada kalena ay nagula yaabayso marka hadda qofkaas oo kale maxay u arkay dadaa wacday dadkan weliba iskama tagaan meesha sida anaga oo kale oo maxay dadka anaga Soomaalida waxaad arkay qof aan loo yeerin oo meesha taagan ayaga saas ma sameeyaan qofkan waa loo soo yeeray laakiin meesheeda laguma maamusin maba lasoo xasuusaninba marka waxyaalahaasa ka qaldan xafladda la dhiganayo oo aroosyada saasaan rabay inaan idinkugu baraarujiyo inta dhiganaysan ee hadda ka dambe ay ogaato qaabka ugu wanaagsan iyo qaabka ay ugu nidaamsan lahaayeen waxooda oo ayna eedna uga imaanin ammaan ma ogiyo oonan waxba kale kasoo gelaynin meeshaas in lagu ammaano maahane aan la dhihin arooskaa meeshaas u kala leelnaa ama meeshaan wax kasii ahaayeen oo dadkii meeshaas tegaya cunto la-aan ama cabitaan la-aan ku dhacday ama kursi la-aan meelay fadhiistaan waayey marka sidaasaa fiican xaflad markaa dhiganaysid inaad si nidaamsan aad wax u dhigato marka isdhex yaacaas isdhex buuqaas aniga aan ku arkay marka inta aragtayna way ila aragtay insha Allah marka saasaan idin xasuusinayo oo aan rabaa in wax looga saxo wixii laga sixi lahaa iyo qaabkii loo sixi lahaayna insha Allah qaybta kale aan kusoo qaadanayaa insha Allah sidii loo sixi lahaa oo wax looga hagaajin lahaa oo si quruxsan oo degani ah oo buuq lahayn qof walba oo rabto inay xaflad dhigato
ee xafladeeda u dhigan karto si nidaam ah. insha Allah qaybta kale kusoo qaadanaya. qaybtaana maanta waa baraarujin dhinacaas xafladda arooska ah. marka sidaa ula socdo barnaamijka insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.